Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabaday daawadayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo walaashiin ayaanoo idin leh. Maalin wanaagsan, Ramadaan Kariim. Maanta waxaan idiin soo diyaariyay barnaamij yar oon raba inaan fartayda kula sugo, barnaamij yar oo caafimaad. Barnaamijkaas yar waxaan kaga hadlaynaa xanuun la yiraahdo PID ama Pelvic Inflammatory Disease. Pelvic Inflammatory Disease waa xanuun ku dhaca macdanta dumarka. Dhaawac weyn oo waliba haddii aan xilli sax la daaweyn wuxuu sababi karaa dhaawac weyn oo ah in haween oo gaarsiisan inay haweeneydu awood u yeelan weydo inay wax dhasho. Pelvic Inflammatory Disease wuxuu leeyahay waxaa laga qaadaa ama sababa bakteeriyaad badan. Bakteeriyaadkaas oo labada ugu caansan xanuunkan gudbintiisa ay yihiin Neisseria gonorrhea iyo chlamydia. Markay labadan bakteeriya midkood ama labaduba u soo gudbaan marinka qaybta habdhiska taranka haweenka oo ilmagaleenka fallopian tubeska ilmagaleenka iyo gacmaha makaanka ama meesha ay ugxantu soo dhex marto marka ay soo baxayso iyo ovary-ga oo halka ugxantu ku jirto. Markay xagga u soo gudbaan bakteeriyadan ay awood u yeelatay inay kor u soo baxdo ayuu xanuunkani dhashaa oo ay isu bedelaa PID Pelvic Inflammatory Disease oo macnaheedu yahay caabuqa bararya miskaha dumarka. Xanuunkan inta badan calaamadihiisu waa khafiif ama lama dareemo. Waxaa dhici karta adoo qaba inaadan dareemin. Haddii aad dareento laakiin waxay noqonayaan calaamadihiisu macdantu inay xoog ku xanuunto, qoyaan fara badan oo aan ahayn kii caadiga ahaa ee la yaqaanay inaad yeelato. Waxaa kaloo aad yeelan kartaa dhiig ka imanaya makaanka oo aan ahayn kii caadada. Inaad gabadhu inay xanuun ku dareento isu taga dhinaca jinsiga ee labka iyo dhadiga oo isagana ay dhibaato ay kaa soo gaadho ama aad ku xanuunsato. Xanuun inaad ku dareento kaadida, inay kaadidu xoog ku xanuujiso. Sidoo kale haddii ay calaamadahan iyo xumad habeen wadata qandho inaad dadooto oo kale. Haddaad calaamadaha isku aragto fadlan si degdeg ah u tag dhakhtar dumar. Inta badan waxaa fiican dadku inay isbaadhaan guurka ka hor. Waliba marka xanuunkaas laga helo qofkana waxaa fiican partnerkiisa ama qofka xaaskiisa saygeedu inuu u raaco dhakhtarka oo isagana la daaweeyo. Waxa caddaynaya inuu qabo xanuunadaas la isugu gudbiyo galmada gonorrhea iyo chlamydia.